kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Bulsho Sports TV markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada ay hayno waxa kamid ah Emmanuel Petit oo Chelsea kula taliyay saxiixa Eric Haaland, Ramos oo tijaabada caafimaad u maray Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti oo go'aan cusub ku soo kordhiyay tababarka kooxda, Neymar oo jeclaan lahaa inuu finalka wajaho Argentina. Intaasi waxay qodobadii warka haatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan. Emmanuel Petit oo Chelsea kula taliyay saxiixa Eric Haaland, warbixintaasi waxa eegaya Ibrahim Maxamed Cali. xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea Emmanuel Petit ayaa u sheegay kooxdiisii hore su'aasha jawaabta hortaala ee ay Borussia Dortmund iyo xidiga Eric Haaland dhaliyaha reer Norway oo kamid ah xidigaha ugu fiican waqtigan qaaradda Yurub isagoo xilli ciyaareedkii hore Dortmund u dhaliyay 41 gool 41 kulan oo u metelay. Emmanuel Petit ayaa talo siinaya Chelsea ayaa ku yiri Olivier Giroud wuxuu ka baxayaa Chelsea, Toby Abraham waxa uu ku baxayaa ama Timo Werner weli waxa uu ku dhibaatoonayaa inuu si joogto ah goolal ugu dhaliyo Kai Havertzna maaha weeraryahan qiimaha Haaland waa mid xilli horeba aad u sareeya. xiriirka kala dhaxeeya Tuchel iyo Dortmund ayaa xoojinaya fursadda ugu biiri kara Chelsea. Ramos oo tijaabada caafimaad u maray Paris Saint-Germain, warbixintaasi waxa eegaysa Qamar Maxamed Cumar. kabtankii hore ee kooxda Real Madrid ahna rugcadaaga daafaca reer Spain Sergio Ramos ayaa maanta salaasa tijaabada caafimaadka u maray kooxda Faranska ee Paris Saint-Germain. Sergio Ramos ayaa dalabaad ka helay kooxda Premier League balse ugu dambeyntii go'aansaday inuu u wareego kooxda uu tababare Mauricio Pochettino hoggaanka u yahay ee PSG. Ramos ayaa noqon doona xubin muhiim ah kooxdaas ka caawisa hamigeeda inay ku guuleysato UEFA Champions League oo ay wax kasta u sameeyay sanadii ugu dambeeyay balse aysan wali xaqiijin. Haatanna kanaalka ESPN ayaa sheegay in Ramos uu heshiis 2 sano ah qalinka ugu duugi doono Paris Saint-Germain marka uu maanta maro tijaabada caafimaadka. Ramos ayaa noqon doona saxiixii labaad ee weyn ee PSG sameyso suuqa xagaagan kadib Jorginho Wijnaldum ay qaab xor ah kaga qaateen Liverpool. Carlo Ancelotti oo go'aan cusub ku soo kordhiyay tababarka kooxda, warbixintaasi waxa eegaya Xasan Cumar Xuseen. tababaraha cusub kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa tallaabo cusub ku fulay xidigaha kooxdiisa xilli uu shalay si rasmi ah u bilowday waqti labaad ee uu jago tababarnimo ka qabanayo kooxdaas. tababaraha Talyaaniga ayaa isniintii shalay xidigaha diyaarka in la heli karin la bilaabay tababarka isagoo ciyaartooyada mariyay tababar adag oo shaqo badan. ma noqon doonto markii ugu dambeysay ee uu Ancelotti xidigiisa uu seexiyo hoteelka xerada tababarka iyadoo fikradiisu ay tahay in ay halkaasi meesha ugu wanaagsan ay ku nasan karaan markasta oo tababar adag u qorsheysan yahay. Neymar oo jeclaan lahaa finalka inuu wajaho Argentina. garabka weerarka ee xulka qaranka Brazil ee kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar ayaa sheegay inuu doonayo inuu finalka Copa America kula kulmo dalka uu xifaaltanka kubadda kala dhaxeeya ee Argentina oo aan isaga weli booskiisa finalka xaqiiqsan. Lucas Paqueta ayaa mar kale xalay noqday geesiga xulka Zambia iyadoo Neymar uu caawiye ka ah goolka kaliya ee ay ku dhaafeen xulka Peru oo ay afarta dhamaadka Copa America kulmeen. xulka warkacaya tababara Tite ayaa sugaya haatan xulka ugu imaanaya finalka Copa America. ciyaarta kale ayaa caawa xulalka Argentina iyo Colombia iyadoo finalka u dhacaya hadda. hadalka laga qabtay Neymar xalay oo wargeyska Mundo Deportivo oo soo xigta ayuu sheegay inuu doonayo inuu la kulmo Argentina maadaama uu asxaab badan ku leeyahay halkaas. Neymar ayaa xulka Argentina ka garanaya ciyaaryahanno badan oo isku wanaagsan yihiin sida Lionel Messi, Angel Di Maria iyo Paredes. waxaan doonayaa Argentina sababtoo ah asxaab badan ayaan ku leeyahay halkaas. waxaan doonayaa inaan eega ka hortago waxaan rajeynayaa in Brazil ay guuleysato. Pablo Sarabia ayaa seegi doona kulanka caawil ciyaari doona Azuri. qodobkaasi waxa eegaya Cabdirasaaq Cabdi Ibrahim. tababaraha xulka qaranka Spain ee Luis Enrique ayaa ka nixiyay taageerayaasha dalkiisa isagoo xaqiijiyay maqnaashaha garabka weerar ee Pablo Sarabia ee kulanka adag ay caawa Wembley Stadium kula ciyaarayaan dhigooda Talyaaniga. La Rojo ayaa caawa ka hortagaya Azuri oo ah mid ka mid ah dalalka bandhiga ugu cajiibsan ilaa iyo haatan ka soo sameeyay Euro 2020 loona saadaalinayo ku guuleysiga koobka. intii aan ku soo gabagabeynayna wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV iyo anigu Aamin Ismaa waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.